damaashaadkii farxaddii kowga luulyo oo maalin xornimo ay ku lamaanan tahay midoob oo ummadda Soomaaliyeed ay midoobay waxaan rabaa ereyo kooban iyo taariikh yar oo ku saabsan arrinkan in aan idin soo gudbiyo laakiin tan waxa ka horeeya warnimo yahow maanta isku yimid Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message. Maalinta tahay ma wax ka tiraadaan diyaar haye waa maalin tilmaam leh taariikhi xusuus leh waa maalintan tanaadnay aniga ay boodin sug ilmanimada ma ay u cisheen tanaadnay oo tisqaadnay gumaystihii Talyaaniga waa maalintuu tagayo dad badan oo ay ku jiraan kuwa da' iyo kuwa dawladi aan arkin ayaa waxa macquul ah inay maanta isweydiiyaan maxay tahay xorriyadda la sheegayay iyo midowga iyadoo 26 Juun ay dad badan dabaaldegeen wixii ogweyba ogyihiin kuwaan ogeena ana ogeysiin 26 Juun 1960 waxaa xornimada gumaystihii Ingiriiska ka qaatay gobolada waqooyi ee Soomaaliya afar maalmood kadib wafdi uu hogaaminayo cigaal Allah u naxariistay oo calankii sida ayaa waxay aadeen koonfur si ay uga qayb galaan dawaaldega xornimada koonfur oo iyaguna Talyaaniga ka qaatay isla maalintaasi oo ahayd 1 bisha Julayna waxa dhacay midowga labada gobol ee koonfur iyo waqooyi oo ay kala gumaysan jireen dawladaha Ingiriiska iyo waliba Talyaaniga muddo aan sidaa ugu sii fogeenna waxay markii la sameeyay baarlamaan kadib ay baarlamaanka madaxweyne ugu doorteen Allah u naxariistay aadan Cabdulle Cismaan Daar aadan Cad intaas waxay ahayd kilib yar oo aan ugu talagalay inaan ogeysiyo dadka maanta waxay ugu duwan tahay maalintii hore 26 Juun iyo waliba midowgii oo ay ku wada farxeen thank you akhiirta anagu kama daalno dabaaldegeena dhalinyaro badan anagoo halkan joogo waxaan diyaar u nahay ilaa xillimaa aan ka dhiceeno in aan dabaaldega sii wadno laakiin maadaama ay nagu jiraan gabdho uur leh sida adna oo kale waxaan jeclaysan inaan intaan ku soo gabagabeyn ummadda Soomaaliyeed meel walba oo joogaan waxaan leeyahay hambalyo intaan barnaamijka soo gabagabeyn waxaan halkaan si gaar ugu mahadcelinayaa saaxiibkay walaalkay doon anooli burhaan oo dhanka kaamirada gacan weyn iga siiyay dib intayna mid lacayn barnaamijyadan oo kale sanadka dambe Allah haddii uu na gaarsiiyo aan ugu kulmi doono waa saxaafi saaxiibadiisa Abwaandeeq Xasan Badnime iyo waliba agaasimaheena guud Mr. Bakar داود يولي عبد الرحمن فلوجة أدنى أميرة رضوان الياس نادية ومن الله نواديني إنه لكم أنتم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته